wadaadka iskale al-istiqsaa li akhbaar duwal al-maghrib al-aqsa wuxuu inoo soo guuray qiso aad u dhib badan oo dhacday 986 hijrada nin la oran jiray abu abdullah muhammad abdullah as-sa'di oo boqor ahaa oo maghrib xukumi jiray iyo adeerkii abi marwan abdul malik baa isku qabtay boqortooyadii awowgoodii labaad ayaa dhib sameeyo wuxuu yiri marka anigu dhinto wiilasha anu aan dhalay iyo waxay sii dhaleen boqortooyada waxay u kala leeyihiin sida ay u kala weyn yihiin nin walba ninku kan weeyahay buu ka mutaaxilka ama adeer han noqdo ama wiil dhalay han noqde kadibna abi abdullah oo da'yara markay hawsha cabaar soo socotay buu xukunkii marooqsaday asagoo uu joognin adeerkii oo abu marwan la ka da'weyna abu marwan waxa isqabtay abdullah abu abdullah baa isqabtay maxamed abdullah as-sa'di niman ashraf aalu bayt rasuulillah bay ahaayeen muslimiintuna u hoggaansamaan wadanka daga kadib dagaalada dhaxmaray odayga adeerka iyo wiilkii dawladda haystay dagaalihii 21 macrakay ahaayeen intuu waxa ku jabay wiilkii odaygii baa meeshu u haray wiilku wuu cararay waagi dambe wuxuu u tagay Spain buu tagay Isbaanishka boqoradii gaalada wuxuu ii kaalmeeya oo ii gargaara boqortayda aabahay baa adeerka iga dhacay inaad dhulka ii soo qabataan baraba ila halganta ila dagaal gashaan hantidan aan wax idin ka siiyo boqorkii Spain wuxuu yiri dhulka nin taga oo guuleystay lama aragay u dhaqaaqi mayno muslimiinta ninka dhax taga waa diirnayaan buu xataa dadka ilaasho marka rayso oo degto aakhirku ku dirto weeyba ku baabi'iya dhulka aan u dhaqaaqi maayo boqorku uu soo laabtay wuxuu ku soo calaalay Portugiisku yimid nin haystay buu u tagay oo kibir nin dhalinyaro kibirani u ahaa boqortay ma cidla ka helay waxa la dhulka maghribna kala bar aan ku siiyo kaalina boqortooyada ii soo dhici adeerkan iga qabo wuxuu diyaar baan ahay 120 oo nin buu soo dhaqaajiyay oo fardoole u badnay kan boqorkee abdullah ibn muhammad abu abdullah as-sa'di la yiraahday asagu sheedaanka ee galada doontayna wuxuu watay 300 la carartay buu watay waxa ku jira nin faqiiha oo kutub alifaad loo jeclaa oo la oran jiray waxa la oran jiray abu abdullah muhammad abdullah ibn askar saaxib kitab ad-dawha muallaf manshura wa 'inda al-maliki wala yaqaan waliba mutaakhirin tooda baa rag ku jiray ciidankii loo socday waxay yimaadeen maghrib xuduudeeda bay yimaadeen badii bay ka soo gudbeen abu marwan iyo muslimiintu waxay maqleen ciidana fooda la gelin karin inuu meesha 40 buu ya allah ku soo ururay wadadka kale ninka muslimka ah ee boqorka wadanka ku haray ee shariifka ah 40 buu ya allah ku soo urushay kana 120 oo gaala iyo wax asagu yabiban karay 150 buu wadaa oo xataa isku awood ahayn abi marwan ku nin dib badan oo geesa oo shujaaca oo saaxiib makiida oo xarbi u ah kadib wiilku adeerku ahaa yaa wuxuu sameeyay khayaano sunbu u soo dhiibay niman uu ka dhigay inay dawladda taageersan yihiin islaamka buu sun ugu soo dhiibay munaafiqiina wuxuu adeerka raashinka u sumeeya kadib odayga baa raashinka loo sumeeyay oo cunahay ninka boqorka ee muslimka ah sunti baa qabatay markuu dareemay inay suntu qabatay ay wuxuu yiri waa inaan duulo oo gaalada meeshay joogto ugu tagna buuri dadkan oo muusha sheegay uu ka qariyay haduu xanuun baa bilaabay boqorku waa xanuunsan yahay sariir ugu qaada buuri bari wixii ka dambeeyna waa inaan duulaan qaadna gaaladan loogu tago meeshay joogto xalay boqorku ciidankii ma diyaarsano waxa ka baxa buuri magaalo kasta nafiir caam waa in laga istinfaar caam la galiyo waxaynu hayno waan isku geeyna meesha waadi al-makhazin ay nimanka ay joogaan kii adeerku awaashada wuxuu gaaladu wuxuu ku yiri hal bildaal ha gelin suga maxaa jira adeerku dhiman doonaa buu laana sunta gaari daawana helima uu dhiman doonaa mar haduu dhintana dawladdu waa la isku qabsan khilaaf baa dhici muslimiinta maclan ana qabsan doonaa buu kaadiye nimankan nasaar niman kibirsan way abu marwan wuxuu bilaa waraaq inuu qoro wuxuu leeyahay waa idin soo socdaaba ku dhig gaaladii 2 usbuuc idin soo jira al hada ragtiin ana waan soo socday soo dhawaada buu soo socda wuxuu rabaa intuu soo sii socdo iyo inta ay soo socdeen waqtigu gaabto intuu san dhimanin la isheelu doonaya kii wiilka ahaa hawsha uu og yahay uu wuxuu yiri gaalo ha dhaqaaqina hal bil wareegaysta sir muxuu xogow sahan iyo munaawashaad min dagaal weeyaan la gali odaygu markuu dhinto ana meeshan ku qabsan doono iyadoo dib ku daadanini wuxuu yiri ma aanu nasraani ah oo mid muslim sakaraada uu farta ugu yeedhamaan istaagahaya waan galhaya gaalkii waa soo dhaqaaqay
meel baa la isku helay bannaan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiintii buu guuleeyey dagaalka oo socda oon weli gaaladuna aysan jabin muslimiintuna ay dagaalamahayaan la isriixin ayuu abi marwaan geeriyooday markuu geeriyoonaya nimankii xujaabta ee waday sariirtiisa wuxuu yiri sariirtayda wada markaan dhinto ciidanka ku dhaxwada waxaana tiraadaan boqorka wuxuu leeyahay saa u dagaalama halka mara tilmaama inaan noolahay ka soo qaada buu lamana sheegi karo muslimiinta haday jabaan iyo haday guuleystaan inaan dhinta lama sheegi karo walaalkii abaanduula ahaa iyo nin adoon ahaa labadaas gariis ogaa labaduna waa qariye asagoo farta af kula jiruna geeriyo oo farta qaniisin taasoo ku nafbaxay 124 kun iyo wixii soo raacay 10 kun waxaan dhan baa ka figtay ciidanka muslimiinta 25 kun baa leeatay oo shahiiday 20 wax dhan baa ka soo haran oo la ku badbaaday dagaalkaas Boortaqiisku wuxuu ku kalifay inay naaftaan oo waliba ay fatwadaan boqoradoodii afan wadaadahoodii waxay fatwadeen bacda tilka alhazima waxay fanzinadu inay banaantahay xalaal tahay iyo fatwadeen oo Boortaqiisku dhan laga fatwaday wadaadii intay shireen 300 oo faqih nasrani masiixi waxay soo fatwa ku saabsan zinadu inay banaantahay xalaal tahay gabadh kasto nasaarana ah ay dhiibato say wiil u dhasho Boortaqiisa rag waa dhamaaday nafar nool ma jiro culamo muslimiintu waxay ku qiyaaseen dagaalka dagaal la mid inuu san dhicin fi taariikh laana yom waahid dagaalka ah dagaal ay saa loogu leedo oo gaala saa ugu jabto fi yawmin waahid boqorkiina uu dhimanayo oo laga warqabin ilaahay nasr uu keenay buu ahaa waxaan u jeedaa markii gaalay la qufahayay gaal dhaxdeeda waxa laga helay faqih min ashar alfuqaha oo la soo dagaal galay gaalada kuna dhax dhintay dhiigi gaalada iyo asagoo murtada dhiigiisa isku qulqulay ninka waxa la yiraahdaa markuu ka hadlayay saaxiib al-istiqsa li akhbar dawal al-maghrib al-aqsa mujallad kalabaad safxada 279 حادثة سنة 986 بشر ربيع الثاني وحيد ومن وجد صريعا في القتلى يومئذ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عسكر صاحب الدوحة فإنه كان هرب مع المصلوخ نينك حلك لقى قاضي وكان من بطانته فدخل معه بلاد العدو فوجد بين جيف النصارى قتيلا وتكلم الناس في أمره حتى قيل إنه وجد على شمالهم مستدبر القبلة ninka markii la soo bixiyay meedkiisa asagoo dhanka bidix u jiifa qibladana dhabarka u duwo oo saa ku nafbaxay baa nasaay laga dhaxqaaday gabagabadu waxa weeye wadaadku inuu fitnoobo oo diinta ka baxo ama ummadda uu minjaxaabiyo ama waxaan ummadda diin ooga dhigo waa wax soo dhici jiray qariibna aan ahayn ruux macsuumana ma jiro intuu alla ilaashay mooyeen adiga waxa kugu aadan inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala barido nin walbo diintiisa ku kalsoonaad ka ilaaliso حقنا هذا وقالت هوشاني إني سوي جرتي هذا بالله توفيق